runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan anaga oo ah taladii dhalinyarada gobolka bari iyo qaybaha kala duwan dhalinyaradii matalaysay ee dhalinyarada gobolka bari inaan la kulano maamulka gobolka bari ujeedka kulankan wuxuu ahaa xoojinta xiriirka dhalinyarada iyo maamulka iyo sidii looga qayb qaadan lahaa doorkana loo muujin lahaa dhalinyarada u muujin lahayd doorashooyinka inagu soo aadan oo la filayo insha Allah inay ka dhacaan Puntland doorashooyin qof iyo codka ah waxaan isla garanay muhiimadda ay leeyihiin dhalinyaradu iyo macnaha ay u sameynayaan dhalinyarada doorashooyinkan loo madlan yahay waxaan isla gorfeynay isla qaadanay inaan dirdirgelino nidaamkan doorashooyinka ah xisbiyada badan horeyna u soo socday oo aan ahayn wax hadda bilowday waxaan runtii gudoonka gobolka iyo mas'uuliyiinta aan la kulanay isweydaarsanay shaqooyin dalada gobolka bari ay ka qabatay nidaamkaas hadii ahaan lahayd wacyigelin waxaan sidoo kale aan isla garanay inaanu wadi doono kulamada lagu wacyigelinayo bulshada waxaa jiri doona kulanka ka dambeyn doona ballaaran insha Allah taala qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhalinyarada guud ahaan haweenka dhamaantood lagu wacyigelinayo kaas oo lagu dardargelinayo doorashooyinka qofka codka ah qof iyo codka ah ee insha Allah rajaynayna in Puntland ka dhacaan doorashooyinka runtii dhalinyarada muhiim ay u tahay dhalinyarada oo lagu la sheego inay hadda kor u dhaafeen boqolkiiba 70 waxaan rajaynaynaa inay u tahay fursada koowaad oo iga qayb qaadan karaan dhalinyarada siyaasadda iyo doorashooyinka uga qayb qaadan karaan inuu yahay nidaamkan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala doorkooda inay qaataan kalsooni weyn baan ku qabnaa intaasan ku soo koobaya shirkadda Daryeel Deegaan waa shirkad ka shaqeysa nadaafadda magaalada Garowe waxay shirkadu qaabilsan tahay qaadista qashinka dareeraha iyo adkaaba iyadoo kugu adeegaysa hufnaan iyo howlkarnimo goobtaada ganacsiga xafiiskaaga ama gurigaaga waxay shirkadu ku diyaarisay nooc walba oo haamaha qashinka lagu kaydiyo iyadoo shirkadu ka qaadayso fee aan badnayn haddaba aan wehel ka dhigano shirkadda nadaafadda ee Daryeel Deegaan si looga fogeeyo qashinka barnaamijka saakalkan lagu qabtay wuxuu barnaamij dan ugu jirto oo maaragtay muhiim u ah bulshada reer Puntland dimuqraadiyaddu sideedaba waa arrin aan la maleysan karin oo maaragtay sheeg codkaaga ku ciilbax dhalinyaro bacda intaas waxaan dhiirigelinayaa howlwadeenada maaragtay hawshaan wada iyo dhammaan maaragtay gudiyada doorashooyinka ugu horeeya madaxweynaha iyo gudiga tibik dhammaan gudiyada waxaan leeyahay codkaagu waa xaqaaga adigoo u jeeda haystoodsiin dhalinyarada gobolka barina waxaan ka codsanayaa inay maaragtay barnaamijkaas ay fiiro gaar u yeeshaan ay maaragtay sheeg codkaaga adiga aad ku xisaabtanto adiga xaqaaga dhacsato adiga waxa u baahanta samaysato bacda dhalinyaro marka inta laga yimaado waxaan aad u boorinayaa haweenka gobolka bari gabdhaha inay maaragtay barnaamijkaas aad diiradda u saaraan oo ay aad uga qayb qaataan sababtuna waxay tahay maanta maaragtay waxa taagan tihiin meeshii aad idinku isku soo saari lahaydeen maanta ma taagnidin meeshii aad maaragtay aad sistemo kale taa wax ku raadin lahayd barnaamijka dimuqraadiyiinta aad soo dhaweyneynaa hadaan nahay bulshada maaragtay gobolka bari marka inta laga yimaado aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka oo maaragtay barnaamijkan soo abaabulay waxaan leeyahay gudoomiyaha ugu mahadsantahay maadaama aad maaragtay dhalinyaradaadii aad talada wax ka siinayso dhalinyaradaadii aad maanta kulamada noocan oo kale u qabanayso waxyaabaha barnaamijka dimuqraadiyiintana waxa qayb weyn ka qaadan kara dhalinyarada marka waxaan leeyahay dhalinyaro codkiina maaragtay aad waa inaad ugu cilbaxdaan insha Allah binal krimina waa inaad maaragtay qayb lixaad ka qaadataan anu malaad waxa ku celinayaa codka waa xaqaaga adigu haysto